بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم fideogaygan labaad waxaan tixraacayaa hadallada caydaaya oo ribadaha dhankan ka ah horta walaalayaal Soomaaliyey waxaan idiin sheegayaa nimanka ribadahan oo beel weyn oo tiro badan ma jeertan ka mid ah waxay degtaa reserve area meel la yiraahdo ku taal bariga Itoobiya ninkii yaqaana baa yaqaana dhulkaas dhul nolosha ku fiican maahan kaliya wuxuu ku habboon yahay xoolo dhaqashada xooluhu xataa waa ku baaba'an xilli roobaadkuna toddoba bilood waa abaar 3 bilood oo xagaa iyo 4 bilood oo jiilaal webiyo ma laha dabeecad ahaan webiyo ma laha durdurro ma laha abaartaas iska joogta تحت بنية ama infrastructure ama hoos dhismaadna ma laha laamiyaal ma laha mashaariic ma laha dekada ma laha dhul aad u liito way markaan nimanka ribciyaanku ama reerahayagu halkaas degaan Itoobiyada hoos soo barwaaqadaana ma degaan Soomaaliyana kuma badno ma soo jiraan taas waxay keentay in ayaga kaligood macal beelaha kale Soomaaliya la degan dhaqaalahooda u hooseeyo marka hadda doqon wax naga sheegaysa aragtaan doqon wax kale maahan waa doqon deked weeyo oo laami iyo leh xoogaa maxamed siyaad bar wax u dhisay weeye waana beelaha halka dugo dhan oo Soomaaliyeed waa kuwa baqbaqdooda iyo faataa dhugtooda meel laga joogo laayahay waa dad reeraha dekedaha ka xogsada weeyo xoogaa uga soo dugo carabta lala maaragtay ganacsiga lala marka horena carabta u soo xamaali jiray oo asalkooda hadii la raaco carabtay ka soo tuugsan jireen shaqooyinka hoose carabtay ariyaha u soo raaci jireen carabtay beeraha u soo fali jireen carabta u soo xogsan jireen lacagtii ay carabta ka keeneen iyo meelaha iyo shaqooyinkan xirfadaha u baahnayn iyo waxa ku dhisteen maartay xoogaa horumar dhaqaale ku sameeyay intaas anagu noogu faanayaan moog anaga wadan ahaan Itoobiya nala hartay oo dhul la isku haystaan ku dhacnaa dhul la isku haysto oo Soomaaliya aysan horumarin Itoobiya aysan horumarin Itoobiya waxa ka dhigatay meelaha degno saldhigyo military ciidamada kaydka bay ku xareysataa ma fahantay wax horumarina ma u qaban wax dhaqaale uma qaban marka doqonta aan waxba ogeyni halka wax ka eegmayso waxay arkaysaa dad badan oo maartay halka ka yimid oo ay macnaha dhaqaale ahaan ay ka gacan sareyso ay dib wax u baarimayso dib wax u ogaan mayso sababtu maxay tahay dhimayso waa iska faanaysaa ma ogtay aniga xoolaan leenay dhaqaalaha la idinku maxay haystaan gaata warada gaajada maxaa keenay faqriga maxaa keenay cayrta maxaa keenay dib u raac macnaha markii beel ahaan isku barbardhigo beelaha Soomaaliyeed hoose soo jira oo dekadaha oo laamiyada leh oo webiyada leh yani isma gaarno waa naga anagu geel iyo ari baan dhaqanaa dhulka qarfaha baan ku dhaqanaa nala kamana badna ayaga geel iyo ariga